munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada London taasi oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan waxaana munaasabadaasi ka qayb galay wariyaheena Maxamed Cabdi Cali Daacad warbixinta warkaan ay nooga diyaariyay munaasabadan ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaana lagu taageerayay dawlad goboleedka koonfur galbeed ee saddexda gobol ka kooban waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin culamaa u diin aqoon-yahano ku nool dalkan Britain munaasabadan ayaa waxaa looga gol lahaa sida bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeedo deegaanada koonfur galbeed dalka Soomaaliya ay kaga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska koonfur galbeed dalka Soomaaliya waxayna sidoo kale aad u soo dhaweeyeen in madaxweyne u noqdo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay sheegeen inuu yahay nin karti u leh inuu hogaamiyo anaga waxa uu diyaar u nahay dhalinyarada diyaar u tahay aqoon-yahanka diyaar u yahay mucallimiinta diyaar u yihiin inaad dib u dhis aan ku sameeyno gobolka Shabeellaha Hoose kana soo bilow Brava ilaa Jasiira inaan ka dhigno 20 sano oo burburkii ina Ilaahay idinkiisi 2 sano ku soo celino marka hadda yani waxay ka dambeeyay waxa laga hadlay kaliya dib u dhiska ayaa ka dhib badan burburinta waxa wax yar la qaadanaysa in wax la burburiyo laakiin dib u dhiska waxa ay leedahay yani mashaakil badan ay leedahay marka dadka waa in lagu baraarujiyaa sidii ay uga qayb gali lahaayeen dib u dhiska gobolada kulli yani khaasatan Shabeellaha Hoose marka maadaama aan saas macnaha barwaaqo aan u nahay dhulkeena oo barwaaqo u yahay dadkii aan haysanana ay yihiin dad maartay run ahaantii oo business ah lacag haya in dadkeenan businesska ah oo qaarkood ay halkan hadda fadhiyaan talada aan soo jeedinayo waxay tahay in la sameeyo organization ama urur loogu talagalay horumarka ee aan ahayn urur siyaasadeed aan ahayn ururo kale oo ay tahay horumarka Shabeellaha Hoose bulshooyinka degan gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku adkeysanayaan in si dhab ah loogu qayb geliyo go'aanka gaarida dhammaan arimahooda la xiriiraan siyaasadda lagu maamulayo degmooyinkooda lagu sugayo amaankooda iyo lagula dhaqmaayo bulshadooda marka waxaan leeyahay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Shariif Aadan inaad muxuu ahaayay annaga waxaan ka rabnaa waxa weeyaan ka codsanay markii lagu dooranayayna ay shacabka ugu doorteen waxay ahayd inaad ka shaqeyso ugu horeyn nabadgelyadooda caafimaadkooda waxbarashadooda intiina waa lagaga fadhiyaa maanta kulli shay yarjac min asl nin kastaba meeshuu ka yimid ayuu noqonayaa shimbirtii soo baxdayba way laabanaysaa kolka dhulkeeni anaga ayuuna sigayaa dhismihiisa qabaqaabadiisa horumarintiisa dadkeeni meesha ku harayna ay anaga sugayaan oo intaas oo sanadood dhibaatadii iyo dhibkii iyo burburkii u adkeysanayay waxay naga rabaan kaalmo iyo baraarujin waxaanu ka codsanaynaa maadaama hadda maamul goboleedyadii la soo eebiyeeyo in ay tixgeliso maamulkan cusub ee gobolka koonfur galbeed in gacan lagu siiyo lagala shaqeeyo waxa la yiraahdo nabadda Shariif Xasan waa lagu doortay shacbiga oo dhan dibadda iyo gudaha waxaan ka sugeynaa kali inaad sinaanta iyo cadaaladda aad u keentid dadkaaga gaar ahaan militariga hadda meeshaas maleeshiyaadka oo isbaaraha u dhigeen gaar ahaan hadda dhibaatada ka socda degmada Baraale waxaan ka codsanaynaa in arintaasi oo la afjaro si degdeg ah dadka diasporada ah ee u dhashay gobolkan waxay ballan qaadayaan inay ku noqonayaan dalkii inay ku noqonayaan diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dawlad goboleedka koonfur galbeed waxa kaloo ay ka go'an tahay inay gaar ahaan ay wax ka qabtaan dhinacyada arrimaha bulshada dhinacyada beeraha dhinacyada xoolaha oo gobolkaasi caan uu ku yahay waxaa la idinka rabaa inta fadhiso inaan ka qayb qaadano waxaana ballan qaadaynaa inayna arintaani dantaan ka leenahay oo dhan aan ka gaarno in gobolkaasi uu nadiif noqdo inaanan dadkiisii ay gacantiisa ay gasho ina ummadaan ay noqoto ummad horumar leh
umad deegaankoodii wax ka qabsata aqoontoodii qabsata meel kastaan ku dayacantihiin meel kasta ku baabaasannahay aan maanta aan isugu tagno aeroboortka muhiimadda uu u leeyahay gobolka Shabeellaha Hoose aan idin sheegayo gobolka Shabeellaha Hoose magaalo madaxdiisa Baraawe maanta hay'ad ku imaanaysa ama wafdi ku imaanaya aeroboorka ka soo taga mal aeroboorka waa albaabka deegaan laga soo galo ama gobol laga soo galo aeroboor hadduusan lahayn maamulka saddexda gobol siiba magaalo madaxda Baraawe hadduusan lahayn maanta baahida iyo baaba iyo burburka uu jiraya mar walba